بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي هالكن وبرت يوتيوب قالك ورارك قضبضة aadku maqli doontaan warkayaga haduu rabbi ka raali noqdana waxa qayb ka noqonayo dagaal dib uga qarxay dalka Itoobiya khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay Makala warbaahinada caalamka waxay qorayaan Itoobiya in markani ay gashay xaalad dagaal oo khatar ah jabhadda TPLF oo sheegtay in magaalada Makala oo caasimad u ah Tigray in haatan ay gacanta ku hayaan maxaa ka jira ciidamo xoogan oo ka tirsan jabhadda Tigray inay gacanta ku hayaan Makala madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay kaga hadleen saddex qodob oo markaas aad ugu adkaatay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wararkii ugu dambeeyay shirka Muqdisho ka soconayo xilli gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finish uu la yimid tabasho la mid ah tabashadii Cali Gudlaaw daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar kamid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa barta YouTube ee galka wararka hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saartay isla markaana gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay daawade muuqaaladeena qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oorahadaada laag noo saarsiina share asxaabtaada u sii gudbisi sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan bartan YouTube ee galka wararka ugu horeyn aynu ku bilownay marka xaaladaha ka jira dalka Itoobiya dagaal culus ayaa ka qarxay dalka Itoobiya warbaahinada caalamka waxay qorayaan in Itoobiya markaani ay gashay xaalad dagaal oo aad khatar ah jabhadda TPLF waxay ku soo xoogeysatay qaybo badan oo kamid ah dalka Itoobiya magaalada Makala caasimadu waxay u tahay Tigray haatan waxay gacanta ugu jirtaa isla markaana ku sugan ciidanka TPLF daawadayaal qaybaha hore ee wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa siyaasadaha iyo sidaas oo kale xaaladaha cakiran ee markaasi ka jira dalka Itoobiya annaga oo eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ugu horeyn aynu ku bilownay jabhadda Tigray oo markaasi dib u qabsatay magaalada Makala jabhadda Tigray ee ka dagaalanta dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dib ay u qabsatay magaalada Makala oo caasimad u ah Tigray Itoobiya ayaa u muuqatay inay gashay marxalad cusub kadib markii ay xoogeysteen dagaalada ka soconaya dalkaasi warbaahinta dalka Itoobiya waxay shaacinaysaa in dagaal xoog leh kadib si buuxda ay markaasi ula wareegeen ciidanka jabhadda Tigray jabhadda TPLF ayaa maalmihii la soo dhaafay soo rogaal celisay kadib markii dhawaan la qabsaday inta badan magaalooyinkii ay ku sugnaayeen warbaahinada caalamka waxay qorayaan in haatan Itoobiya ay gashay xaalad dagaal oo markaasi khatar ah iyadoo wali ay sheegayaan jabhadda TPLF in markaas ay ku jiraan ciidan aruursi isla markaana saraakiil dhowr ah oo u hadashay ay sheegeen in ay doonayaan in markaas qaybo badan oo kamid ah dalka Itoobiya ay la wareegaan dagaalo uu ku qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isla markaana ciidan daacad u ah waxay horay ula wareegeen Makala iyo sidaas oo kale meelo dhowr ah sidaas oo kalena waxay ahaayeen kadib markii saraakiil firfircoon oo ciidankaasi horkacisay ay soo qabteen geesta kalena dawladda federaalka Itoobiya ayaa xabad joojin hal dhinac ah markaas dhaqan gelinaysa isla markaana ay ku dhawaaqday sida ay sheegtay warbaahinta dawladda xukuumadda Addis Ababa ayaa si markaas joogto ah uga soo horjeesanaysa baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta bini'aadanimo jabhadda Tigray ee ka dagaalanta dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dib ay u qabsadeen magaalada Makala ee caasimadda Itoobiya ayaa u muuqatay inay gashay marxalad cusub kadib markii ay xoogeysteen dagaalada ka soconaya dalkaasi dawladda federaalka Itoobiya xabad joojin hal dhinac ah ayay ku dhawaaqday kadib markii dhowr jeer oo hore
hay-adaha caalamka ay ugu baaqeen in markaas ay joojiyaan xasuuqa ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa horey loogu eedeeyay in markaas uusan dhag jalaq u siin baaqyada caalamka kaga imaanaya. Tani ayaa waxay noqonaysaa arrin cusub isla markaana u muuqanaysa in markaas Abiy Ahmed ay soo wajahday baqdin xoogan kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah. Waxaana la leeyahay dadka falanqeeya siyaasadda Itoobiya ay sheegayaan in culaysyo dhowr ah ay markaasi soo wajaheen isla markaana aad ay u xoogeysanayaan ciidamada markaas daacadda u ah Tigreeda. Waxay wararku sidaas oo kale sheegayaan in saraakiil mayal adag oo ka tirsan ciidankaas ay ka soo talaabayaan Makalla isla markaana ay sidaas oo kale u sii tilaabayaan qaybo dhowr ah oo markaasi ka tirsan dalkaasi Itoobiya. Daawadayaal, markan aynu dib u soo jaleecna Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay Muqdisho ku yeesheen kulan gaar ah oo ay kaga hadlayeen arrimo dhowr ah. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa hoygiisa markaas uu ka degan yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku qaabilay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo markaas booqasho ugu yimid. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka, sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta markaas dhexmari lahayd labada maamul ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen iyo sidaas oo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxay sidaas oo kale ka hadleen doorka siyaasadeed ee markaas iyo kaalinta ay ka qaadan karaan maamuladooda iyagoo dhowaan soo dhammaystiray gudiyadii lagu muransanaa ee markaasi loo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Galmudug booqashada ugu yimid, waxaana madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay yeelanayaan kulamo markaas aan caadi ahayn isla markaana ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka iyo sidaas oo kale ergooyinka dhowrka ah ee ka imaanayo deegaanada ay ka arimayaan. Markan shirki ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaan dib ugu soo laabanaynaa anagoo markaas jaleeci doono wararkii ugu dambeeyay ee kulankaas markaasna magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ku yeelanayaan shanta dowlad goboleed ee markaas dalka ka jira, iyadoo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo maalinnimadii shalayta ahayd uu kaga qayb qaatay dhanka Zoom-ka ah. Waxaa kulanka Muqdisho ku wada yeeshay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cumar Finish iyo sidaas oo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Waxaa maalintii labaad galaya shirka golaha wadatashiga doorashooyinka kaas oo shalay madaxda dowlad goboleedyada uga furmay xarunta teendhada Afisyooni magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasoo looga hadlaya arrimo dhowr ah. Kulankii shalay ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka, waxyaabaha u qabsoomay, horumarada laga sameeyay iyo haddii ay jireen caqabado muddadii bisha ahayd ee markaasi la kala maqnaa. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo shirka kaga qayb galay aaladda Zoom-ka isaga oo markaasi ka maqan dalka isla markaana ku sugan Turkiga ayaa la filayaa in maanta uu soo gaaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana kulankaas uu ku soo biro. Maanta ayaa mar kale kulanka halkaasi ka sii socon doona, waxaana la filayaa inay markaas ka qayb noqdaan gudiyada gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha u xil saaray arrimaha doorashooyinka, kuwaas oo ka warbixinayo isla markaana ka hadlaya arrimaha loo idmaday. Wararka kale ee la helaya ayaa sheegayaan in madaxda ay sidoo kale
si aan baqaadi doonaan sababta keentay in madaxda ay shiraan taas oo ku saabsan in dib u eegis lagu sameyn doono qodobada qaar heshiiska doorashada sida qodobka ku saabsan labada markaas goobood ee loo asteeyay in markaas lagu qabto arrimaha doorashooyinka iyadoona maamul goboleedyo dhowr ah ay dood ka keeneen in markaas lagu qabto laba meel arrimaha doorashooyinka shirka golaha wadatashiga doorashooyinka ayaa waxaa la filayaa inay madaxda heshiis ku gaaraan isla markaana ay markaas gabi ahaanba ay ka soo saari doonaan warmurtiyeed ku saabsan dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo halka ay marayaan. daawade guud ahaan warkii oo aad kala socotay galka wararka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga. daawade waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in muuqaaladeena aad laag noo saarto isla markaana qaybta hoose ee ooraahda aad noogu reebto ooraahdaada ku aadan wararka iyo warbixinada aan kusoo gudbinay. sidaas oo kale waad u sii sheer gareyn kartaa asxaabtaada si mar waliba ay u helaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka iyo dunida daafaheeda si mar waliba aan saaxiib ugu wada noqono. halkan asxaabtaada u sii sheer garay adigu haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada ugu horeeya aan bartan YouTube kusoo gudbino. waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodka iyo la jaanqaadkaada.